wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqo raadis waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka xogo waaweyn oo aanu ka helnay muuqaallo laga soo duubay firxadka kumanaan ciidanka Itoobiya oo lagu jabiyey dagaalkii ka socday magaalada Kobo iyo deegaanada nawaaxigeeda ah iyo waxaan ku soo qaadanaynaa kale waa maxay sababta ugu weyn ee keentay in ciidanka Itoobiya looga adkaado Kobo qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku falanqayn doonaa ku soo dhawaada barnaamijka waagaag aynu ku bilownay waxa goor dhaweyd fiidkii markaasi xalay toole ka hadlay dagaalada ka socday Itoobiya gaar ahaan dhinaca Kobo taliska guud ee markaasi ciidanka TPLF ayaa waxay haatan sheegteen inay qabsadeen deegaanada ay ka mid yihiin Gugudo, Fokisa, Sepul, Mendefra, Kobo, Robit, Soshmariam iyo Takalosha waxaana haatan sheegay markaasi in guulo waaweyn ka gaadheen dagaalka oo markaa ay iska difaaceen waa sidii hadalka u dhigeen xoogaga markaasi ciidanka Itoobiya oo ay sheegeen markaa in 23 division ama 23 guuto oo waaweyn oo markaasi ciidamada Itoobiya ay markaa jilibka u dhigeen kuwaasoo markaasi ay ku jiraan ciidamada gaarka xitaa qoomiyadda Axmaaradu iyo marka maleeshiyaad markaa ilaa 1000 askari gaaraya iyo sida oo kale waxay yiraahdeen 6 brigade ama 6 guuto oo markaasi kooxda Faanoya waxaana haatan sheeganayaan markaasi Tigreegu in ay gulahaasi ay ka gaadheen markaa dagaaladii dhacay haddaba dhinaca kale xukuumadda Itoobiya ayaa iyadu markaasi warbixin ka soo saartay magaalada Kobo xaqiijisayna in ay magaalada Kobo iskaga baxeen oo haatan ay ciidankii amreen inay ka baxaan magaalada Kobo oo markaa sida ay ku baneeyeen haddaba muuqaallo ayaa laga soo duubay markaasi ciidankii Itoobiya oo markaa magaaladii Kobo ka yaacaya oo ka socda oo ka qulqulaya sida oo kale waxa muuqaalada laga soo duubay dad badan oo shacab ah oo runtii markaa firxad ah oo markaa dhulkii biyayowga ahaa webiyada iyo markaa dooxooyinkii yaacaya dadkaasi oo runtii moogtay wanigi barnaamij ku soo qaadanay falqaynta siyaasadda caalamka barnaamijkeena caawa baxay ama xalay kaasi oo kaga waraynay bariishkii isku xidhayay magaalada Kobo iyo Waldiya in la gooyay haddaba muuqaallo laga soo duubay ayaad arkaysaa firxadka dadkii shacabka oo caruurihii sita iyo xitaa rag moogtay qaawan oo moogtay Soomaaliya iyagoo hurdo dagaalka ku dul dhacay oo shoorti kaliya ta xidhan yacni dad badan oo meesha ka soo yaacay muuqaalo laga soo duubay markaasi xalay oo dhan la soo garinayay baraha bulshada waxaana taasi markaasi keentay argagax markaasi dadku ka soo yaaceen magaaladii Kobo haddaba waxa haatan la isweydiinayaa sidee ayay markaasi ciidamada TPLF-tu ay ku qabsatay sagaalka degmo ama magaalo ee waaweyn kaasi oo markaa magaalada Kobo ay ugu weyn tahay magaalooyinka kalena ah magaalo buuraley oo markaa ku hareeraysan magaalada Kobo markaa magaalada ugu weyn waa Kobo inta kale waa magaalooyin yaryar oo laakiin istaraatiijiya dhulkii buuraleyda soo baldha waxaa la sheegay haatan inay gebi ahaanba TPLF-tu gacanta ku hayso markaa Kobo sida ay uga baxday xukuumaddu iyadu waxa ay sheegeen inay u danaynaysay shacabka oo ay diideen markaa inay ku dhex dagaalamaan Kobo darteedna ay amreen ciidanka markaasi Itoobiya in ay ka soo baxaan wararka haddaba iyo xogaha aan helayna ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay jiraan markaa dad badan oo dhalinyaro oo Tigree ah oo ka soo moogtay waqtiga dawladda cunaqabatayntu saaran tahay Tigreega ilaa sanadkii moogtay ugu dambeeyay oo dhan dadkii dhalinyarta ka soo yaacay markaasi Tigreega ku gaajooday ama ku silcay oo Kobo joogay ayaa markaasi maalmihii dhaweyd ee dagaalku dhacayna wali barnaamijkii daraad ama shalay kaga hadlaynay xukuumadda oo sheegtay cidii basaasay joogto Kobo ila soo wargeliyo taasi waxay keentay bal markaa in dadkii shacabka ahaa moogtay dhalinyartii iyo dadkii shacabka Tigreega ahaa ee Kobo joogay la beegsado haddaba saasay xukuumaddu waxa ay markaa go'aan ku gaadhay baa leeyahay si aan isku dhac shacab aanu iman oo dhalinyartaan waxba loo yeelin dadkaasi in ciidanka Itoobiya ay iskaga baxaan oo markaasi ay baneeyaan warar kale waxa uu sheegayaa in ay markaa jireen ciidamo hore ay ka tirsanaan jiray dawladda Itoobiya oo TPLF qabsatay markii dambana ay dawladdu u arxam weyday gorgorta ka gali weyday laakiin TPLF ay iska soo daysay baa leeyahay oo magaalada Kobo iskaga noolaa
kuwiibaa markaasi la saftay bay qaar sheegayaan wararku TPLFta la saftay kadibna waxay keentay markaa in magaaladii Koobo ka dhex bilaabantay xabaddu aduu si kasta ha ahaatee TPLFta haatan iyada ayaa Koobo gacanta ku haysa waxaana wacad ku mareen inay sii soconayaan markaa oo deegaano badan ay qabsanayaan waxaana yidhaahdeen waan isdifaacina oo moogtay in iyagu isdifaacayaan bay hadalka u dhigayaan laakiinse waxay haatan taagan yihiin baa la yidhi in geeri iyo nolol maadaama ay dadkii moogtay Tigreegii gaajo ay u dhimanayaan oo moogtay cunaqabatayni saaran tahay iyagiina dadkii moogtay shicibka Tigreegina waxa ay taagan yihiin laba waxa qarka u saareen kacdoon ku kacaan marka xukuumadii Tigreega oo la dagaalamaan saadabtii waxay go'aansadeen nimankan Tigreega iyo dagaalyahanadoodu in laba darami dooro weeyaan ama shacabkooda ku kacaya oo deynta wax ka badan ma xamili karayo wadan dhan oo wax la soo galin waxna ka baxayn oo dadkii gaajo ay u dhimanayaan marka inay xukuumadii kacdoon ku sameeyaan oo ay TPLF afgambiyay noqonaysa sadarteed iyagoo hubkii haysta waxa ay door bideen bal marka inay hubkoogan ay markaasi ku calaf qaadaan oo iyaguna deegaano badan axmaarada ka soo qabsadaan iyadoo sababta ugu weyn haatan dagaalka dhalinaysa ay tahay galbeedka Tigray ee markaasi axmaaradu haysato ee marka gorgortanka soo galiyeen wada hadallada nabadda inta la qaban ka hor bay yiraahdeen ciidamada axmaarada laga saaro galbeedka Tigray iyo ciidamada Eritrea bay yiraahdeen iyo kuwa marka India ENDF ama ciidanka marka dawladda Ethiopia wala sababta ugu weyn wada hadallada u fashilmeen marka sadarteed maadaama axmaarada haysatay bileeyay galbeedka Tigray anaguna waxaan qabsanaynaa bay leeyihiin hadda gobollo badan oo axmaarada ah oo markaasi ay haatan ku soo duuleen tibika sidii sanadkii hore oo kale ay u dagaalamayaan marka waliba hub khatarna way wataan bay wararka qaarkood ay sheegayaan adoo si kasta ha ahaatee waxaa tan sheegayeen xuquuq markaasi dagaalku ilaa iyo haatan uu socdaa wixii kale markaasi ka soo kordhayna barnaamijyada ma ka soo qaadanayna barnaamijka intaas ku dhayeetan iyo kulantideena dambe nabadgelyo